waxaan idinku yeedhay idinkoo ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan inaad ila ogaataan inaan ahay musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah, daneeyayaasha Soomaaliya iyo qaramada midoobay in ay u guntadaan waajibka ka saaran sidii doorasho daahfuran looga qaban lahaa dalka Soomaaliya. qodobka labaad, waxaan kaloo ugu baaqayaa dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee dalka ka dhacaysa inay ka fogaadaan wax kasta oo khalkhal gelinaya nabadgelyada iyo xasiloonida dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay doorashadu ka dhacayso si xawli ahna uga soo kabanaysa haarihii dagaaladii sokeeye ee dalka. cid kasta uga digayaa in hanashada xilka madaxweyne loo maro waddo khaldan sida kacdoon shacab iyo durbaan qabiil, kaas oo dalka gelin kara qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni darro. waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa cid kasta oo ka shaqaynaysa isfahamka iyo wada shaqaynta mas-uuliyiinta kala duwan ee dal. dambeyn, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan dhankooda xasiloonida iyo amniga, kana qayb qaataan geedi socodka horumarka waddanka. waxaana dalka u rajaynayaa barwaaqo iyo nabadgelyo. lagu hirto miigan baa tahay, ma huran mugoyn iyo hoggaan